صندوق أو قالة كريستيان كإسكو أسام حلا كريستيان جريف كوفينا لها صندوق هنيك سمي سومالي جو والله ونولي يابا والله ونولي يابا ضد كريستيان أوي صندوق قفك سمي أما فكرة قفك كيني meeshaas waxa waa in lagu baraarugo waay dadka hadda meelaha dhow oo yaryar wax ka arkayaan waxay leeyihiin waxa gashay qabriga soo tijaabinaya tiriyo ilaahay yakso afaariis soo ogaanaya tiriyo wax qabriga yaala waxaas dhan waxa ka sii daran sanduuq kristaanka qofka Soomaali keenay arintaas in la ogaado oo la baaro muhiim waay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh asxaabta ku xiran nimcay oo shiya iyo dhamaan ummadda Soomaaliyeed meel ba joogtiin aan idin salaamaya iid wanaagsan idin leeyahay إيديو كم يسمى صوغ شمعات وعربة إن أنك هالله أنت لابد هبين حالي إيو حالي الإسكالي هذه أو مقالة قبستك إلى إيمانته أو أنت باب جاي أو حنتي جابنا يا قبري أنا أو نول أقلا عفر إلى بعد ساعة الله وقت قادنا يا فالعلم أنت مقالة مركي أنت جيستي ضد بدنك سوف العلنا كهلاي وحالي تقلد واي دينتي إسلام كور طبعا وبقلد بإن قبري وانا ودا سوغاyo anaga dhanaan galeeno qof oo qabriga maanta uusan nafle oo suugeen ma jirto waa loo socdaa kulli waa loo socdaa ayadoo saas ay tahay haddana waxa qalad ah in wax ilaahi afaarihiisa aab gashid baad aab qalad ah in qabri waa soo brobeena horta gaaladan way sameeyaan waxa arkay challenge oo qolo hindi ay sameynaysa maal dhaxdaas laakiin dadkaas ay diin ma haystaan diinta islaamka ma haystaan qabriga intay galeenay wax ku xiran waa 4 saac ku jiraya bal qabrigaas iyo waxaas kale iyo gaalada waxay ka damacsan yihiin inay soo ogaadaan cadaab qabriga iyo waxyaabaha la sheegay maadaama aysan aaminsaneyn wax jiro in waxaas yihiin wax la sheegay leeyihiin ay aaminsan yihiin in ay soo arkaan rabaan marka 4 saac qofka qabriga markii uu ku jirayo muxuu soo arki karaa muxuu la kulmi karaa amuurnaga waaweyn waa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wixii uu gooni ah maalinta yawmal qiyaamaha hadii qof walba qiyaamaha wixii jir la soo bandhigi lahaa waxa way qof adduunyada ku noolaan lahayd maanta ma jirto oo iska faraxsanaan lahayd qof walba wuxuu ku xisaabtami lahaa aakhiradiisa iyo waxa yaalo anaga dad islaam aan nahay waan ognahay inaan dhimanayno waan ognahay inaan aakhiro leenahay waan ognahay in loo noqonayo Ilaahay agtiisa oo laga yimid marka qof islaam ah inuu arintaas ku dhiirado xoogaa aad iyo aad u falxun tahay taas markii laga soo tagay sheekada wiilka hindiga ay wadayeen sheekada wiilka hindiga wuxuu sameeyay qabriga markuu qotay wuu galay 4 saac ilaahay amarkiis ma jiro ilaahay waa awoodaa wax walba qabriga inuu isku keeno xataa wuu awoodaa qofka intuu ku jiro laakiin waxa ku dhacay ninkaas wax lala yaabay rooba 4 barjiha ka imaaday cirka iyo dhulka ilaa qabriga bir loogu soo bixiyo waa ciid ku dhalaashay oo ku damirbay waa afaara kala gashay afaara waaweyn gashay oo lagu dirsan marka ciqaabteeda waa la kulmaysaa dadka waxay uga hadlayaan horta inuu baabajiye qalad galay anaga dhan waa wada jeednaa Soomaaliya oo dhan waa wada jeedo in uu qalad galay waxyaabahaas diinta islaamkana aysan qabin raalina ka ahayn baba anada levelkii waxaan ugu soo dartay maanta adanayntay qabriyan galaa lacala dad badan waxa jiraan xataa dhahayeen qabriga baabajiye kuma jiro laba sanduuq meesha taalo mid qabriga ku duugay mid dadka iska dhaaya baabajiye waxa way calshaan fulinimo ma sameyn karo intaas 4 saac taada kale barnaamijkiisa waxa fashilnaya waxay watahaybo 24 saac habeenkii hadii waxaan ay duubayaan dadka sida ay u duubayaan inuu xal rabay habeenkii oo dhan saacada socoto 29 daqiiqo waa videogiisa inuu ka batal rabay 24 saac inuu videoga ahada rabay hadii dadku wax shaki gelinay oo inay barnaamijkan been tahay ka hadlay oo sheegayaan waxay tahay wax asigii galay cabaar ku jiro iyo blog iyo waxa la soo bandhigay bataatan baabajiyo sawaad intaan wada waa rooro saabay roor waa dhaafta markaan meel loo wada socdo waa si brobeena waa si horumar ah dhoosa lacala hadii aragtid xataa 4 saac in naqaska ay isku celin kartid ama meel xariiri ah gashid oo hadaadan soo ogaanin wax la sheegayo waa yaa qabriga wax ka jiro iyo wax hadaadan soo ogaanin oo aragtid inaad tijaabisid 4 saac in aad meel cunug ku jiro karto qolko yariisa samaysan kartaa oo 4 daaqad lehen inta gashida challenge kaas ka soo dhigan kartaa mid kale intan waa ku sheegaya oo dadkan waa wada sheegaya annaga hadii aan nahay bulshada Soomaaliyeed dadka ugu caansan ee magac leh waxaan nahay indhihi shacabka waxaan nahay aqliga shacabka anaga waxaan tusino ay fiirinayaan waxa jirta dhalinyaro badan oo youtuber ah oo yaryar oo had soo baxayso horta waxaan youtube kan waxa loo wada galay waa views oo laga shaqeysanayo oo laga raadinayo lacag laga wada raadinayo kulligeen ninkii youtube loo dhan views le youtube ugu jiro oo lacag raadinayo hadii aan lacag la rabin oo views la rabin guriyana la iska jeefan lahaa wax youtube furto laguma bijir leen marka hore taas markii loo tan kaleete dhalinyarada anaga aan indhahooda nahay dadka caanka ahaa hadaan nahay dadka waaweyn oo
كوديشان لنا وانا لو دينا ددا waxaan u nahay rodal mola u nahay oo indhahoodi aan nahay wixii maanta aan sameeyno oo anaga xun way arkayaan bari ayagana way sameynayaan had baabjee maanta qabriyo gale bari waxa laga yaabaa wax ka xun haddana inay sameeyaan because waa iclaaminona waxbaan tusinona marka haddii aan dadku wax tusinayno waxa wanaagsan wax fiican oo qiimo leh oo dhaxalgal ah oo caruurteena bari aan uga tagi karno dadka naga dambeeya role modelka aan u nahayna inooga daysan karaan in aan sameyno si ay u arkaan wax fiican anagana aan u noqono dad la xusi karo oo taale ah oo la dhihi karo wallahi waxaasa nimcahey baa samayn jirtay waxaasa hebela samayn jirin la dhihi karo laakiin haddii aan wax walba intaan bilowno bal maanta hadday dadku ugu daydaan ee barnaamijkan oo kale soo sameeyaan ee dad naftooda ku waayaan ka waran diinta islaamka uma fiicno ilaahay agtiisa uma fiicno dadkana uma fiicno dhalinyarada aan anaga role modelka u nahayna uma fiicno wax wanaagsan ma ahan baabjee darada waxaa kasoo qabatay tii la dhahayay another levelka maanta another level waa badhaaftaba another level wax ka weyn oo la dhihi karo ma jiraan hello another level wax kale la dhihi karo ma jiraan another levelkii uu maanta dhaafayba oo afaaro aan anaga shaqo ku lahaynoo maalinteena na sugayso waxaa ku qaslee dahay aan arkayay nin wiil oo qamiisi waxaa soo xirnaa umleena oo ka hadlaya oo dhahaya baabjeeyo waxaa gasha qabri waxaa samaysa another level meeshaas waxaa moogtahay qabriga inuu yahay another level laftirkiisa laba malaa'ig oo madmadow oo another level ku imaanayaan naftaadii iyo waxaaga waa la xisaabinaya kadibna waxaa lagu geenayaa cadaabtii oo another level ah marka another levelkii hirgelisa hadda another level wax ka weyn baabjee afaarahan oo ilaahay afaarihiisa iyo diinteena meel ku dhac ku ah in aad samaysid horta taas waa laga fiicnaa teeda kale ani hal su-aalaan qabaa oo dadka kale dhan ay qabin su-aasheeda tan ugu dambeysa waa su-aasha aan qabaa waxay tahay annaga haddii aan islaam nahay qofka haddii uu dhinto qabriga markii la geliyo iilaa lasii sameeyaa iil ma la sameyna meeshaan sanduuq aa lasoo gada sanduuqaan cidda garanaysa dadka dibadda ku wada nool way yaqaanaan annaga meeshaan wadankeena soomaaliya meel qabuuro kristaan emaa ku yaal kristaan maan ugu jiro meel kristaan lagu duugamaa qabnaa waa maya sanduuq waa calaamad kristaan waaye marka ani waxaan la yaabanahay baabajee qofka hooshiisa waa dheertahay baabajee markaan qofka u sameeyey sanduuqaas haddii la sameeyey qofka sameeyey sanduuqaas oo gaalada kirishtaanka isku asaan waxaa la dhahaa christian grave coffin la dhahaa waxaa isticmaalo dadka kirishtaanka oo keliya aa isticmaalaan war cadaankii aa ku dayinayso oo sameynayeen qabri caadi ee intay galeen shamac iyo wax fidsadeen sanduuqa ninka sameeyey soomaaliya joogo wallahi waa noola yaabaa dad kirishtaan waay teeda kale ani waxaan la yaabaa asxaabtaada kula socoto mugyac ma ku dhahayaan miya barnaamijkan iska dhaaf ma lagaa celina marka sanduuqaas waa sanduuqa kirishtaanka lagu duugo haddii sanduuqaas oo beledkeena yaala ama beledkeena qofka ku sameeyey annaga ilan qabuuro aan ku duugno dadka kirishtaanka eh because kirishtaan bama nihin soomaalida 100% muslim waay sanduuqaas qofki sameeyey ama fikradaas qofki keenay meeshaas waxa waa in lagu baraarugo waay dadka hadda meelaha dhadhow oo yaryar wax ka arkayaana waxay leeyihiin waxaa gashay qabrigan soo tijaabinaya tiriyo ilaahay yaa kasoo afaarihiisa soo ogaanaya tiriyo wixii qabriga yaala waxaas dhan waxaa kasii daran sanduuqa kirishtaanka qofka soomaali keenay arrintaas in la ogaado oo la baaro muhiim waay baabajeeyo tallaabada meesha aad dhigaysid uma fiirsatid walaalkeeyo wallahi uma fiirsatid waxyaabaha aad samaynaysidna uma fiirsatid oo gadaal uma fiirsid la taliyayaal oo saaxiibo fiican ee haddaada qabin xataa aad caqligaaga tii daraada ahayd oo jugtii ku gaartay aa ogeyd oo gabdho kuu joogaan gabar aa qabtaa sodoh aa leedahay waalid kugu xiriiraan dhibaatadeeda ay taagneed aa ogtahay tii caatanka daba keenta baabjee qaab kaleeto arsaaq lagu raadsadaa jirto wallahi bilaah jaalajiyaashaada oo yaryarka ah oo dheelada iyo wax iska cunayseen idinkoo ku jirto inaan idii qaatay inaad ku raadsatidaa kuuran laakiin barnaamijyadan waxa waa albaaba aan la garaacina jiro albaaba khatara garaacuusa dhiiqaa lugaha usii wadataa hadda kastoo yariis oo murugtaada isbuucle kasoo wareegin haddana qabri arrintan waa weyn waaye wallahi sheekyaal badan dad badan oo kasoo falcelinayaana arkay wadaade oo kasoo hadlayaan iyo shacabka iyo qof walbo diinta islaamka dee qalbigiisa ay ku jirto islaama kasoo hadlaya ka hadlaya waxaan waxa waaye ku tayasho gaalo waaye awlaa anaga maxaa dhahaa nalagu leexinaya dhanka munkarka oo dhahay waxay tuujumaan waxay waxayaan haddana inta haddii afaarahan aan sii galna dhib waaye teeda kaleeta malkameedka asaaba ku imaanayabo asoo fiirin asoo rooray asaa ku imaanaya waqtigaaga maalinta ay tahay meeshaas iyadoo run ah aa la isgeenayaa ma fahantay marka intii la gaarayo wax wanaagsan oo fiican oo maxaa la dhahay bulshadana anfacaya awlaadaada anfacaya dadkana anfacaya lagaagana daydo
samee walaalkay intaas waana iga tahay videogaas waa ka aamus waaye saasaana aan uga soo hadlay teeda kale baabajeeha u maleyna personal attack inaan kugu ahay ama inaan adiga kaa soo horjeedo laakiin walaalka waxaa la dhahay hadduu gar daran yahay gar i gar daran walaalkaa cisho alleh hadduu gar daran yahayna cisho hadduu gar leeyahayna cisho aniga waxa maskaxdeeda ka degila oo aan maanta qaadi lahay sanduuqaas kirishtaanka ah baabajeeyo qofka fikradiisa kugu dhaliyey ama qofka kuu soo sameeyey meeshaas wax kala ka socda baabajeeyo dhiiqa lagu halguu gelinoyaa wallahi dhiiqa lagu halguu gelinoyaa aashaa soco abuu maskiinaa tahay ilmaa haysataa waa shaqaysanaysaa ya fiyuuskan waxaad ka raadisaa wax adiga naftaada anfacayo oo berina lagaaga dayanayo oo dadkuna maaragtay ay leeyihiin baabajeeyo wax fiican uu soo qabtay sanduuqaas ani iga dhigantahay sanduuqaas qofka sameynayo ama qofka fikradiisa kugu dhaliyey waxaa waaye baabajeeyo sanduuqaas Soomaaliya bal sanduuqaas idinkana ila ogaada meeshuu sanduuqaas ka imaada dhil ma ahane teeda kale asxaabta ma ku cishanayaan yac ma ku dhahayaan jaanijigan qatar waaye ha sameynin ma ku dhahayaan ilis cishtaa saaxiib lagu yahay walaalkaa gar sanduuqa maxaa waaye sanduuqaas calaamad gaal waaye sanduuq waaye aniga waxaan ka shakisanaya barnaamijkan dad badan oo kusoo falcelinaya waa arka laakiin ilaa hadda qof sanduuqaas oo ku baraarugsan ma jirto waxaa arkaya dad dhahayaan 2 sanduuq oo noo sameystay halas galay halka kale inta boojale waaye oo saacadihii iyo jiniga iyo wixii oo dhan maxaa loo arki waaya dad dhahayaan waxay is dhahayaan umaleynaa waxaan baraangilo ahaa oo idinku sameynaya marka intaas waanay iga tahay personal attack ma kugu iyo horena waa kugu sheegay adigu ma attack gareenoy laakiin wixii run ah iyo wixii fikradeeda ah inaan ka hadlo oo adigana aan ku cishto aan macnaha videoga sadarta aan usoo duubay waxaan ku leeyahay ilaahay u toobakeen ilaahay ka cabso baabajeey waxyaabaha qaar aad sameynaysid iska ilaali lugtaada meesha aad dhigaysid u fiirso waa salaam ayaa dhammaantiin assalaamu calaykum